كحيجان ماد جرنين حيوان كبال لي حيوان كلا أردن أقانته ولا دشان هل كبني آدم كوجه لي قلا دشوا حيوان ك ما دركتين سكول شمبرة سكول ديجاني يقول لي ما دركتين يا بس سكول كوجرتنا أري سكول ديجاني يا السبب معي يكو علمك ولا دشان بالي قابك أنه لا يعني يكو ويقعنا ولا دشان لكن عدة أبهانين وحبرته وبني آدمك إنه كان ظلوما جهولا صفات كاسب بني آدم إلى يكو شيء ظلوم ومد المجيست بدن جهولا وحلي وحو قرني بني آدم مجرو حبان نقانا ونسكلنا لكن حبان ما نقانو علمي إنك علمك أقونت ضدك وين برتان هذا قابك أقل كالله دسوا بران سكولنا ذو قبح ذو بهنتاي إنجنير ماذا هندسة لكن شمبرتو أقل كيد إني دستو ما هو بهنتاي علمي وما بهنو ويتقانا ولي بأقل كشمبرتو أي دستها الكيك دستها جيدها لا أنت هلك أوجد جيل عسام بأقل كيك ذكر دستها سيف عنو دقيستا هلك أوجد جيل عسام bari meel tuula anigoo jooga baan geed baan hoos fadhiyay marka odayaal reemiya marka ila joogay oo xoogaa kitaab baan u akhrinayay markaasaan ku yiri geedkan shimbiruhu sababta laanta halka uga jilcsan ay aqalkeeda uga laalaadisay bali sheega waxay yiraahdeen waa difaac dhasheeda shimbirtu naalay dhalaysaa naalo dhasheeda waxa ka cunaya yiraahdeen maska goodka la yiraahdo geedka intuu fuulo ka soo cunaa qambaarkuna maaragtaanay intuu dhinac isku taagabo ka cunaa halka ugu jilicsan waxay ugu rakibatay waa si uu qambaarku halka kuma joogsan karo hadduu ku joogsado uu dhacaya maskuna halka ma gaari kara lagu leeyahay mid labaad geedkeega aqalkeeda saasay u laalaadisaa sidanay u gashaa sidanay u seexataa sidan bay u gali sidana waa u gali aqalka maqsinka gudaha sababtu waa maxay waa biyo shub roob kastoo da biyihiisu ma galaan baa la yidhi cilmiga ayaa baray horeyaa baray cilmiga ilaahay baa baray idan xayawaanku cilmiga way la dhashaan halka bini aadanka ilaahay uu ku sheegay inay yihiin jaahiliin waxba aanan garanayn wajacala lakum alsamca walabsaara walaf'idata lacallakum tashkuruun baa ilaahay yidhi aalaadkan bini aadanku ay wax ku bartaan baa la yidhi waa saddexdaas maqalka iyo aragga iyo qalbiga saddexdaasuu qofku u baahan yahay inuu wax barto maqal waa inaad wax maqashaa waa inaad wax aragtaa waa inaad qalbi wax weelaya aada yeelataa saddexdaa haddaanad lahayn wax ma baran karaysid saddexdaana ayaayna siiyey bal sheega ilaahay bayna siiyey haddii maanta dadku lacag baan raadinaynaa kulligan iminka lacag hataa gabdhaha iskoolka dhiganaya iskoolka waxa u dhiganayaan waa hadhow ha shaqaysiduun way fiican tahay dayib haddii lagu yidhaahdo adduunka waxa lacagtaa la keligaabaa saaka lagu tirin oo halkaa laguu soo dhigayo labada indhood han kaa saarno ma ku bedelan lahayd bal u fiirso mid soomaaliyaa yidhi mid baan iga saar odhan lahaa buu yidhi soomaalidu way lacag jecel yihin moogta mid baan iga saar odhan lahaa buu yidhi markaasaa lagu odhan lahaa may labadaba le labada ma yeeleen buu yidhi waa iska haystaan marka waxa ilaahayna siiyo wax u dhigmaahe ma jirto saa darteed aragga ilaahay baa ku siiye ilaahay ha ku caasin maqalka ilaahay baa ku siiye ilaahay ha ku caasin qalbiga iyo caqliga culammada qaar mid bay ku sheegaan inuu mid keliya yahay waa halka qofka bini aadamku wax ka kala garta weeyaan ilaahay baa ku siiyey ilaahay ha ku caasin qof waalan wax ma dhigan karayo waad ogtihiin qof indhoola ah inila dhigan kari maayo ininka indhoolayaasha qaab kalaa wax loogu dhigaa dhagoolayaasha ayakana qaar gacantana wax loogu dhigaa gacanta laftigeegu iyadna waxa weyaan waa aalad laakiin saddexdana ka horeysa maqalkaa ka horeeya araggaa ka horeeya qalbiga caqligaa ka horeeya saddexdaa markii haddii la dhaafo ayaa laga yaaba hadduu qofku maqal iyo arag labada midna uu lahayn hadduu gacantiisu ay shaqaynayso waa kan dadka maaratan qaar baa gacmaha wax lagu baraa far waaweyn baa loo dhibaayo dadna way bartaan
waayo wacallama alinsaana maa lam yaclam aladi callama bilqalami halkaa bay gacantu soo galaysaa. ilaahay waa ka bani aadamka qalamka wax ku bare qoraal inaad qorto. waxaad qorayso waa inaad aragtaad u baahan tahay, waxaad qorayso haddaad arkayna waa inaad taabataad u baahan tahay. halkaaba iyaduna gacantu ay soo galaysaa. marka nicamta ilaahay ina siiyey ilaahay yaanan iloobin oo ilaahay sidaa han u xasuusnana mar walba. oo waxa ugu weyna ilaahay nagu waajibiyey bacda shahaadateyn waa salaada. salaadu waa maxay? halkaad jirhkaaga ugu jeceshahay ilaahay dhulka u dhig. qofka salaada tukadee salaada ilaaliya caqligiisu barako yeeshaa, caafimaadkiisu uu barakoobaa, xataa tacliintaadaa baraka yeelan, cimrigaagaa ilaahay kuu barakayn. nin 120 jira ayaa la arkay baa layidhi isagoo sida dhallinyarada u kacaya, u hadlaya, u socda, u ordaya, u boodaya. markaasaa lagu yihi warniyow 100kii waad dhaaftee, adigan haddana xooggaagii waa 30 jir baa lagu moodaaye maxaad cuntay baa lagu yidhi. wuxuu yidhi xafidtu allaha fii sigarii faxafida allahu fii kibarii buu yidhi. dhallinyarnimadaydii baan ilaahay amarkiisa ilaaliyey, oo intaan dhallinyarada ahaa baan ilaahay abuuray baan ka baqay, oo maqalkaygii ilaahay siiyey kuma caasin, araggii ilaahay uu siiyey kuma caasin, xooggaygii caafimaadkayga ilaahay kuma caasin. maadaaman yaraantaydii ilaahay amarkiisa aan ilaaliyey, aniguna markaan weynaado ilaahay baa ilaaliyey buu yidhi. ku saliya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. marka inta aan yarnahay baa loo baahan yahay inaan inakuna ku dadaalna insha allah ilaahay taacadiisa, cibaadadiisa. yaa sidaa uu diyaara insha allah? yaa uu diyaara salaada inuu ku dadaalo? salaada subaxadoo lagugu leeyahay iskoolka ha iman insha allah dhahada. iminka haddaan su-aasha ayni weydiiye ka warrama, intee salaada subax soo tukatay ayaana soo tukan? haddii su-aasha layna weydiin lahaa intee baa badan lahayd bayna la tahay dadka? inta soo tukataa badnaan lahayd miya? intaanan soo tukan dee tii ilaahay kugu lahaa mar haddaad dayacday maxaa kaloo markaa kuu hagaagi? markaa salaada ku dadaala, dalkiinana jeclaada. dalka oo la jeclaadaa sharcigeena islaamku uu ina amray ogaada. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam maka markii qurayshi ay ka saarayseen nebiga layidhi madiine u hijro, magaalada maka intuu soo eegay buu nebigu yidhi innaka la axabu lbilaadi ilaya buu yidhi, walowlaa ana qawmii akhrajuunii lamaa kharajtu minki. dhulka makay adigaan kuugu jecelahay waa masqad ra'sihi, waa halkii xundhurtiisu ay ku aasneeda ku dugnayd. haddayna tolkay iga kaa saarin buu nebigu yihi makay kaamaan baxeen buu ku yidhi. waa nebi maxamed baa dhulkuu ku dhashay sidaa u jeclaa. markaasaa ilaahay ku yidhi qul ina aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad. waxaa nebiga lagu yidhi ilaaha qur'aanka kuu waxyooday ee waxyiga kugu soo dejiyey ee nebiga kaa dhigtay wuxuu kuu ballan qaadayaa maka inuu kugu soo celin doono. dhulkeenna han jeclaano. ma jecellahay? iska ilaaliya hadalkaas. ma jeceshiin dhulkiina? haddaba qalbiga ha ka dhoofina. ile dadka imika dalka jooga waa qolo inaga dhooftay oo dhulkaa reer galbeedka gashay iyo kuwa sii jeedo sii socda. kuwa dhoofay dadka dhoofay ee qurbaha galay baa yaqaana dhulkooga qiimaha uu leeyahay, kuwa jooga ma yaqaanaan. halka waddankaaga iyo dhulkaagaad qiimiya sharaf ku leedahay. isaga wax u baro, isaga u adeeg. ilaahow arsaaqad xalaala dalkayga iigu sii ku ducayso. dal waxaad haysataa dadkiisu qoys keliya ay yihiin, qoys keliya. adduunka lama helo dad nuucana oo dal nuucan haysta adduunka wallaahi inaynan jirin, wallahi baan ku dhaartay. dal waxaad haysataa dadka ku nool 100% wada muslim ay yihiin, madhab keliya ay wada haystaan, luqa keliya ay ku wada hadlaan. haddaad wax baran dalkaaga u baro, aqoontaad baratayna dalkaagay qiimo ku yeelane. haddaad imika halkan jaamacadaha dalkeena intood ka baxda aad tahriibto